السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليق السود وهذا ميلكستا جوجتان ولكن ديق الله أو channel تذكرنا لكم عصبتاي سبسكرايب كلايك شيرتا كومنتيغا waxaan idin wadaa arrin galabta ka dhacday magaalada Garowe oo arrin fool xun ah gabdho Soomaaliyeed ee reer Puntland u dhashay Saciid Cabdilaahi Deni uu fadhiyo garoonka gabdhihii Soomaaliyeed ee Garowe joogay lagu bahdilayo xaq miyaa mise waa xaq darro taa idinka idin weydiinaya arrintan waxaan uga hadlayaa oo raba inaan gaarsiisaan madaxda Puntland madaxda Soomaaliya waxaan leeyahay gabar Soomaaliyeed oo hooyo ah oo muruwa ah oo ku dhashay oo kula dhalatay in aad askartaada maanta u adeegsatid oo saa loola dhaqmo horta waa arrin dhaqan ama diin midna aan ku salaysnayn Saciid Cabdilaahi Deni waxaan leeyahay madaxweyne waad ceebowday madaxweyne Soomaaliyeed baa la sheegayay baa rabtaa anigu madaxweyne Soomaaliyeed Puntland baan ku arkaa oo waxa saa loo bahdilayo oo saa loo jiidayo oo hablihii Puntland meel ku sheeg kuwii shal la kufsanayay baan meel saar lahayd meel ku sheegi lahayd laakiin maanta in ciidankaagi waliba staafkaagi ya adigoo garoonka jooga gabdhihii Soomaaliyeed ee Garowe u dhashay in saa loogu bahdilo waa arrin qiso fool xun oo magacayo maamuus xumo ku noqonaysa run baan kuu sheegaya gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed sharaf bay noo leeyihiin habluhu waa hooyooyinkood waa walaalahay waa noo dhaxeen arrintaasna waxaan leeyahay madaxda Puntland in ay ka soo jawaabto madaxda Soomaaliyeed baan rabaa inaad fiidiyoga u gudbisaan fiidiyowgana inaad meel dheer gaarsiisaan like-ta iyo share-ta iyo commentiga u badisaan isku daya Saciid Cabdilaahi Deni hadduu caawa raaxaysanayo oo xaaskiisa hoosta kaga jiro oo gabadhiisa u fiyowdahay gabadha saa loo jiidayo oo ciidankiisa u jiidayaan waa gabar Soomaaliyeed waa hooyo Soomaaliyeed magac xumay ku tahay samcad xumay ku tahay waa inay ka hadashaa odayaashu boqorka suldaamada ugaasiyada nabadoonnada arrinta gabdhaha ciidankaas ay kula kaceen dee haddii ay cidla ka laayeen way kufsan lahaayeen Puntlandna wax fiidiyowga lagama soo duubo laakiin ciidankeedu saas u dhaqmaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ciidanka Saciid Cabdilaahi Deni oo hoggaansan ee qolka ugu jira saasay u dhaqmaan dhaqanka hadduu saa yahay hablaha in saa loo xumeeyo aad baan uga xumahay aadna waa ugu gubtay markaan fiidiyowga arkay adiga daawanaya maxay kula tahay haddii aad sax u haysatid wax kastoo ciidanku ay sameeyaan wax kasta oo maamulku uu sameeyo saana hablaha loogu bahdilo hooyadaana ogow in la bahdilayo walaashaana ogow in la bahdilayo aad baan uga xumahay aadna waa idin salaamaya meel kasta joogtaan fiidiyowgaas waa 12 habeenimo waxaan ugu talagalay asxaabtayda inaad qaadaan u geysaan madaxda ilaa Saciid Cabdilaahi Deni ilaa arrinta haddaan wax laga qaban wallaahi billaahi tullaahi samcad xumo inay tahay maamulka Puntland iyo Saciid Cabdilaahi Deni shacabka reer Puntland inay dhibaataysan yihiin baan ogaanay oo dulmi lagu haysto aadna waa idin salaamaya